waxaan u diraynaa tacsiya ciddii maaragtay marxuum cumar iska imaaday waxaan leenahay sabir iyo iimaan Allah in siiya maaragtay waa in garab taagannahay marxuumkana janno Allah ka waraabiyo waxay rabaan intay ku abuuraan dadka cabsi ay ku abuuraan arrintaasna maaragtay arrin cabsi nagu abuuraysa maahan diyaaran sii noqonaynaa intaan aad iskii keen reebna dadaashii aan horaan hayni maahan intu kaloo dheeri aan suubinaynaa waa iska keen reebaynaa meel allah meeshii ay galaanna waa uga dabagelaynaa waxayna uga talagaleen cabsi intay dadka geliyaan cabsi ayna gelinayeen ma leh waxaa kaloo ay rabaan intay dadka isku diraan shacabka ay isku diraan ay rabaan taasna waa midaan maanta u soo baxnay oo shacabka uga tagnay waxaan dhahnay nimankan intay isku keen diraan ay rabaan aan heshiino arrintan ay ku dhaqaaqeen tu islaamnimo maahan tu islaamnimada ka baxsan waaye anagoo iskaashanayna national government iyo county government nimankan waa la iska reebaa meel allah meeshii galaan waa ugu dabagelaynaa bismillaahi raxmaani raxiim maanta waa maalin aad murugo u leh oo maanta aan ninkii kale oo jiifka oo magaalada Gumarey oo ka tirsan sub county Qorafaraar aan ku waynay oo gacan asaga lid ku waynay oo maanta raqdiisii madax kilix laga hayo marka waxaan leeyahay eheladu ka dhintay iyo aqrabkiisii iyo reer Qorafaraar iyo reer Gumarey waxaan u dirayaa tacsiya ayaan u dirayaa waxaan leeyahay jannada ilaahay ka waraabiyo nabigiisa Allah u geeyo dambigiisana Allah u dhaafo waayo ninkaas wuxuu ku dhintay gacan aan lid ku ay gacan ka xaq daran oo lid ku ay ku dhintay marka waxaan leeyahay jannadiisa iyo nabigiisa Allah u geeyo jannadana Allah ka waraabiyo dadkii eheladiisa iyo aqrabkiisina iyo deegaankii maamulka hayna waxaan leeyahay hal cafiyo aad loo cafiyo waayo nin mas'uul ah oo xildhibaan ayuu ahay marka waxaan leeyahay in cafiyo ayaan doonayaa dadku maamulay dadku howl u hay kulligoodba dhammaantood waxaan leeyahay in la cafiyo ayaan u dirayaa midda kale waxaan leeyahay ehelkiisii iyo aqrabkiisii iyo reerkiisii waxaan u dirayaa tacsiyo sabir iyo iimaan Allah in ka siiyo markaan ninkaas nin shaqo ku dhintay waa nin shahuud gacan ka xaq daran oo ku dhintay markaan walaalayaal waxaan leeyahay sabir iyo iimaan Allah in siiyo midda kale dhacdooyadan al-shabaab waa dhacdooyin soo noqotay aad u soo noqotay hadda sida aan ku soconno chiefka dad badan oo shaqaale dawladeed ayaa ku dhintay way ka mid yihiin isbagtayaal dad u shaqeynaya dawladda Kenya oo 33 cadadooda ay gaaraysa ayaa maanta ku dhinteen waxayna ku dhinteen ajalkii yimid al-shabaab waxaa kale oo maanta aan ku leenahay dad national police reserve oo ka mid ah jaamac iyo dadku la shaqeynay 6 NPR ayaa maanta ku maqan marka cadadooda hadii la fiiriyo inta gacantaas ku maqan in dad cadadooda ay tahay fara badan ayaa ku maqan marka waxaan leeyahay annaka uma dul qaadanayno al-shabaab dadka iyo deegaankana uguma tagin al-shabaab waxaan leenahay xilad iyo xikmad iyo raay iyo xandho waxaan leenahay al-shabaab ayaan kula dagaalaynaa meel Allah meesha ay joogaan waan ugu tagaynaa insha Allah biidnillaahi kariim jiifta deegaamaha degan oo meel walba joogo ama location ha joogeen ama sub location ha joogeen kulligood halis bay u yihiin in la weedaarsado ama la daba kaco ay al-shabaab ay daba kacdo oo sida jiifkaanayta ay u dileen ay u gargaciyaan ayaa suurtagelaysa marka waxaan leeyahay dawladda inay sugaan dadku u shaqeeya dawladda hasa jiifyaalka oo degmooyinka xukumo in amaankooda la sugo ayaka laftikooda qalabkii buntuq ay isku daafacaan la siiyo
oona loo sharceeyay baa wanaagsan iyo ilaalo ku filan waa in la siiya waayo haddii ilaalana aan haysanin hub ay isku daafacaan oo shakhsiyan isku daafacaan ay haynin ayaga naftigoodina la weedaarsanhaya waxay noqonayaan naftooda inay halis noqoto ayaa la arkaa marka midaas un baan ku leeyahay midda kale dadweynaha waxaan leeyahay al-shabaab jidkii kale oon maanta aan uga qaalib noqon karno maanta oo wixii dhactooye ay suubiyaan ama cabsida ay dadka ku beereen ninka madaxdiisa magaca la soo dhigay waxa way cabsi beer marka shayga kale oo cabsida ugu bixi karno waxa way anigu niyiisu yeelna la dagaalna waxbanaan u reebanin bismillah waxaan u tacsiyeynaynaa qoyskii iyo qaraabadii iyo maaragtay dadkii madaxda u ahay Chief Umar waxaa maaragtay aan leenahay ilaahay sabar ha idin siiya sabar iyo iimaan ilaahay ha idin siiya maaragtay meeshiisna Allah soo buuxiyo asagana jannatul firdaws Allah ka soo waraabiyo inta kale arrintan waa arrin ugu soo noqotay waa arrin dhib badan waxaan codsan lahayn fast dadka falalka noocan ah sameynayaan in wax la ogahay maxaa yeelay markaas fal noocan ah aad sameynay inaad u samayso sabab hadda annaga sabab aan ognahay oo chiefkaas loo dilay aan garanayna mala in islaam baan wada nahnay maar diinta islaamka la wada sheeganayaa in ma aragtay waxaan sabab laanta dadka maskax loogu qoracay waxaana u direynaa dadka ayaga ah in si kastaba ha ahaatee inuu geerida chiefkaas ay noqonin mid iska dhunto oo mid ma aragtay salkeeda la gaaro maxay maalin kasta ma dhihi karno habla maanta la dili habla maanta la tagay habla yaasan dhiyay in arinta ayada ah insha Allah ta'ala duu ilaahay ma yidin salkeeda la gaaray ilaa ninkii dilay la helo insha Allah qoyska iyo dadka la dhashay ee reer Qorofaraar waxaan leenahay idin tacsiyeynaynaa nimankan dilka ay suubinayeen waxay ugu taragaleen inay argagixisan ugu ridaan in laga cabsada aan la cabsanin waa in la taaganahay waxaan leenahay sabar iyo maartay iimaan ilaahay idin siiya insha Allah waxaan qaybaynaa Umar inuu janno galay waxa dilay niman magaca kala isku yeeran laakiin anaga al-shaydaan aan dhahno waxaan aaminsanna falkii shaydaan ahayaan al-shabaab uma ogolin magacaas maadaama sifada ay la imaadeen oo subinayeen waxaan aaminsanahay horaan waan sheegnay nimankan waa niman islaamka in lagu baabi'iyay loogu talagalay oo gaala ka dambaysa oo maartay dhalinyaro maskaxdooda bedeleen maxaa yeelay qof muslim ah oo ashaadanaya nin mas'uul ah oo ashaadanaya intuu bilaabo qaada sidii neef xoole ah inuu qowraca ana waxaan aaminsanahay inay weliba gaalada ka dambaysa ay yihiin gaalada shaydaanka caabudo ama devil worshipers nimanka la dhaha marka ummadda Soomaaliyeed oo Kenya degan waxaan leenahay nimankaas sibaqay nagu soo galeen aan iska celinna mar ay maartay diin iyo waxba ay noogu soo dhuumanin waxaana u faraynaa nimankii Chief Umar dileen insha Allah ilaahayna waa idin soo qabanaa anagana waa in ku daba jirnaa weliba kii gacanta lahay inaan gacanta kugu soo dhigno oo dilku ma waqoornaa ayla askar dhiman ajeel ku warta yani insha Allah ku targelinaa